dhismaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku yimid 2006 kadib markii xubno ka tirsan qurbo joogta iyo bulshada gudaha ay iska arkeen in loo baahan yahay in shacabka reer Galmudug ay helaan maamul u adeega isla markaana xooga saara horumarintooda maadaama xilligaasi uu jiray oo kaliya maamulka Puntland. shirar badan oo ka dhacay gudaha iyo dibadda ayaa ugu dambeyn lagu balamay in la isugu yimaado gaalkacyo si loo qabto shirweyne looga tashanayo sidii loo sameyn lahaa maamul sal adag leh looguna gudbi lahaa dhibaatooyinkii jiray xilligaasi. waxaan caawar inaan idin sheego markii gaalkacyo aan ku shireynay waxaa la isku qabsaday magacee maamulka loo bixiyaa 400 oo odayaal iyo dhaqan iyo culummo iyo haween iyo waxgarad oo hool fadhiya waxaan dhex dhignay 4 magac waxa la oran jiray barwaaqo oo markaas waxa socotay campaign in hubyo laga dhigo gobol magacaasna la siiyo markaas qolaas waxay noo keeneen hala qaato barwaaqo magac waxa keenay dadka gaalkacyo joogay waxay yiraahdeen hala qaato mudug magac waxa keenay qolo qurbaha ka timid waxay yiraahdeen hala qaato Central State maamulka gobolada dhexe khayraalaasi qaasana wuxuu keenay Galmudug afartii magaca mid kasta fasirnay annaga raggeena hawsha dhisay hamiga aan lahayn oo ahaa in gaalkacyo aan la joogin la fido waxa loo fududeeyay marna caqabad lagu ahaa maamuladii kadib dhismay xilman iyo xeebaa dhisantay waxaa dhismay maamul la yiraahdo Mareeg State waxaa dhismay maamul la yiraahdo Central State caawid waaqay balabala ka dhismay iyo kuwa kala badan Xardheer State waba yiri si waa noo fiicnayd oo waxay fududeysay dad kooban oo meesha deegaanka laga hadli karo inay soo baxaan waa taada fududeysay in baasho ay fidaa timaado waxa laga hadlay oo kaliya xibaan iyo xeeb iyo sunnada jamaaca iyo sida isteen baa laga hadlay haday ahaan lahayd meel iska fiirsana balaqan dib ay ahaan lahayd deelu ma isfahmaan marka artaas ciladna waa ahayd faa'iidana waa ahayd fiditaankii labaadna hadda alxamdulillah rabbil caalamiin maanta dhusmareen maraysa saacadan aan la hadlahayo xafladeeda waxay ka socotaa gaalkacyo waxaana ka socotaa dhusmareen ugu dambeyn hal bishaara idin sheegaya rag iyo dumar gudiyada loo xisaaray dhisada Galmudug saacadan aan la hadlahayo qof xilka haya ma jiro Galmudug dadka aan qaadanay bay ahayd in aan xil doon ahayn ee dadkayga aan xal u raadinayno wixii xilana ay wax qaataan wada tashiyo dheer kadib waxaa lagu guuleystay in lagu soo raaco magaca maamulka Galmudug oo xilligaasi loo arkiyay in magacaasi uu ka tarjumayo gobolada Mudug iyo Galgaduud taas oo sababtay in hadda uu noqdo mid ka mid ah maamulada ugu xoogan ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya. cid walba inaan u ifiyo waxa nool shirgudoonkii oo ah gudoomiyaha guddiga beesha habargidar maanta ah Professor Shirwa waxa kale oo goob jooga u ahaa gudoomiyihii baarlamaanka marka Galmudug ninkii noqday oo isaguna kamid ahaa raggii odayaasha ah shirgudoonka ayaa fadhiyay waxa kale oo shirgudoonkaasi kamid ahaa gaashaanle oo hadda ku nool dalka Ingiriiska sarkaal Soomaaliyeed oo caan ah raggaasi shirgudoonka aba marqaati ka waxgaradkii goobta jooga marqaati ka magacaas markii uu baxay waxaa la isku raacay in maamulkii la yagleelo 800 oo ergaaba dastuurkii hirgelisay guul baa halkaa ka soo ifbaxday iyo gobolada dhexe inay yeeshaan magac taariikhi ah oo isku xiraya Galgaduud iyo Mudug eragaasi sifaasna waa ku yimid saasna waa u baxay maamulkan oo soo maray madax iyo marxalado kala duwan ayaa madaxweynihii ugu horeeyay waxa uu noqday Allah u naxariistay Ambassador Maxamed Cali Warsame Kiimiko oo kamid ahaa qurbo joogtii iyo aqoon-yahankii dalka dibadiisa ugu timid dhismaha dowlad goboleedka Galmudug waxaana xigay Allah u naxariistay Colonel Maxamed Axmed Caalin iyo General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid
oo 9 sano kadib galmudugtii gaarsiiyey qorshaheedii ahaa in mudug iyo galgaduud uu maamulku wada gaaro isla markaana gogosheeda balaarinta la dhigay degmada Cadaado taas oo caasimadeedu tahay Dhuusamareeb laguna doortay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo noqday madaxweynihii afraad sidoo kalena ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo hogaanshay galmudug calankeedu ay isku raacsan yihiin labada gobol inkastoo kooxdii Ahlusunna wal Jamaaca ee Dhuusamareeb ay ka biyadideen maamulka galmudug ee lagu dhameystiray Cadaado oo ay caasimadiisu ay joogeen madaxweyne Guuleed ayaa xilka madaxtinimada iskaga tagay 2 sano kadib markii xaalad caafimaad ay la soo gudboonaatay waxaana la doortay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaas oo heshiis uu Jabuuti kula soo galay kooxdii Ahlusunna maamulka caasimada ku geeyay sanadii 2018 markaas uu qeybiyay awoodiisa dastuuriga oo la furay iyo baarlamaanka oo la badiyay waxaa la gaaray heshiis ay ku midoobeen labada maamul in madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen ee galmudug ay sii haynayaan xilka 2 in magaca galmudug iyo calankaba loo daayo sida ay hadda yihiin 3 in la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaaca awood maamul oo ah madaxa xukuumadda Chief Minister of Ministries dabiiqadii 2019 mar kale ayay galmudug gashay marxalad kala guur ah markii uu dhamaaday xilhayntii Xaaf uuna meesha uu yimid khilaaf u dhaxeeya Ahlusunna iyo Xaaf waxaana shirar dib u heshiisiin iyo dadaalo dheer kadib madaxweynaha galmudug loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor taas oo uu galmudug ku hogaaminayo muddo 6 sano ah hadda galmudug waa maamul dhameystiran oo leh hay'ado kala duwan sidoo kalena waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo ay ka faa'iideysteen degmooyin deegaano badan oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud galmudug ayaa muddadii ay joogtay magaalada Dhuusamareeb waxaa laga hirgeliyay xarumaha dawladda oo ugu horeyso xarunta baarlamaanka xarunta madaxtooyada iyo xarumaha wasaaradaha oo si casri ah loo dhisay isla markaana shaqo abuur badan ay ka heleen dhalinyaro badan oo deegaanka dib ugu soo laabtay sidoo kale waxaa lagu guuleystay in magaalooyinka ugu weyn laga hirgeliyo wadooyin laamiya kuwaas oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Gaalkacyo Cadaado iyo Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb xilligan waxaa ka muuqday isbedel aad u xoogan waxaana dib ugu soo laabanaya deegaankaasi ganacsatada deegaanka kuwaas oo maalgashi xoogan ka wada Dhuusamareeb xilligan waxaa ka soconayo dhismaha laamiyo badan kuwaas oo bulshada ku nool deegaankaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen sidoo kale waxaa lagu guuleystay in markii ugu horeysay deegaanada galmudug ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taas oo dadka deegaanka ay ku dooranayeen cidda ku matalaysa golaha deegaanka iyo golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug